Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada kanaalka Tarjumaad. Maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso ah wiil si tuuganimo ah ugu dhacay nin taajira gurigiisa oo markii dambena ka soo baxay asagoo caruus ah oo gabar loo guuriyey. Ka hor intaynan qisadan bilaabin, ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkan. Wiil ay cabsida Alle qalbigiisa ku jirto ayaa waxa uu u yimid mid ka mid a culimada si uu cilmiga uga barto. Kadib wax badan markii uu bartay ayaa shiiqii ardayda la dardaarmay wuxuuna ku yidhi, dadka ha tuugsanina, qof caalim ah oo dadka u gacmo hoorsanaya khayr ma lahan, ee qof walba shaqada uu aabbihiisa qaban jiray ha ka shaqaysto, Ilaahayna ha uga cabsado. Kadib wiilkii waa uu soo baxay wuxuuna u yimid hooyadii, wuxuuna ku yidhi, hooyo, aabbahay shaqadiisu maxay ahayd? Waxay tidhi, aabbaha Allah u naxariisto kolley waxa uu ahaa waa uu la dhintaye. Mar kale ayuu ku celiyey, ayadana markii ay aragtay in uu ku celcelinaya ayay tidhi, aabbaha waxa uu ahaa tuug. Waxa uu yidhi, shiiqa ayaa nagu yidhi, qof walba shaqada uu aabbihiisa qaban jiray ha ka shaqaysto, Ilaahayna ha uga cabsado. Waa ay la yaabtay waxayna tidhi, ma tuuganima Alla ka cabsi leh. Kadib wiilkii waxa uu bilaabay in uu barto tabta wax loo xado. Waa uu sugay ilaa habeenka laga gaaro. Salaada cishaha ayuu tukaday. Kadib waa uu sugay ilaa ay dadka ka seexdaan. Dadka markii ay seexdeen ayuu soo baxay, waxa uuna ka bilaabay deriska. Asagoo geli raba ayuu xasuustay in uu sheekha yidhi, Alla ha uga cabsado. Wuxuuna is yidhi, deriska in la dhibo Alla ka cabsiga ka mid ma aha. Waa uuna ka tegay. Wuxuu yimid guri agoomeed. Haddana wuxuu yidhi, Ilaahay wuu xarrimay xoolaha agoonta in la cuno. Waa uu ka tegay. Sida uu u socday waxa uu ku yimid nin taajir ah gurigiisa oo aan waardiyo lahayn, dadkuna ay og yihiin taajirkan in uu haysto hanti ka dheeraad ah baahidiisa. Wuxuuna yidhi, waa halkan. Si farsamo leh ayuu albaabka ku furay. Waa uu soo galay. Waxa uu arkay guri waasac ah oo ay qolalkiisu waaweyn yihiin. Sida uu ugu dhex wareegayay markii dambe wuxuu arkay sanduuqyo ay ka buuxaan dahab fara badan. Wuxuu doonay in uu qaato, laakiin wuxuu yidhi, horta sakada ayaa laga bixinayaa. Faynuus uu watay ayuu daartay. Kutubtiisa iyo buugaagtiisa uu wax ku xisaabin lahaa ayuu la soo kala baxay. Wuxuu ahaa nin xisaabta aad ugu fiican. Hantida ayuu xisaabiyey. Qadarka sakada ayuu dhinac u saaray. Inta uu xisaabta ku jiray ayaa salaada subax dhalatay. Wuxuu yidhi, Alla ka cabsiga waa in marka hore salaada la hormariyaa. Inta uu salaada isku diyaarinayay ayaa waxaa soo kacay taajirkii. Waxa uu arkay faynuus daaran iyo hantidiisa oo dhulka kala daadsan iyo nin salaad isku diyaarinayo. Waa uu la yaabay. Asaga iyo naagtiisa waa ay soo degeen. Wuxuu yidhi, nin yahow yaa tahay adiga? Wiilkii wuxuu yidhi, marka hore salaada aan tukano, kadib aan wada hadalno, ee bal soo weyse qaado oo salaada naga bixi, ileen qofka guriga leh ayaa imaamka noqonaye. Taajirkii waa uu la yaabay. Wuxuu is yidhi, tuugan amuu mindi gadaal kaaga suraa. Asagoo cabsidaas qaba ayuu tujiyey salaada. Kadib ayuu taajirkii yidhi, nin yahow maxaad ahayd? Maxayse tahay buugaagtan aad wax ku xisaabinayso? Wiilkii waxa uu yidhi, sakadii aad muddo 6 sano ah aadan bixin ayaan kaa xisaabinayaa. Taajirkii waxa uu yidhi, war hoogay yaa kuu soo sheegay in aan sako bixin? Wiilkii qisadiisa ayuu uga sheekeeyey. Taajirkiina waa uu la yaabay. Naagtiisa ayuu si gooni ah ula hadlay, waxaana u joogtay gabar ay dhaleen. Kadib taajirkii wiilkii ayuu u yimid. Wuxuuna ku yidhi, nin yahow ka waran haddii aan gabadhayda kugu daro oo xisaabiye aad ii noqotid? Wiilkii waxa uu yidhi, waan aqbalay. Waagii markii uu si fiican u baryay ayaana gabadhii lagu mehriyey. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan Tarjumaad, subscribe saar, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan soo gelino.